سهل maaha tacliintu subaxii alla keenaba cilmi baa soo siyaadayo saameeyo koonkee safarkii u dambeeyayna sahal software ayaan idiin sidaayay bulshay hamoogaan marunmaanka ma ku haysay samaysa mareeg ama website dunyadu ay xogaha ka helaan ma u baahan tahay helidda casharo muuqaal tayo sare leh ka faa'iidaysiga casharo PDF oo tiknoolajiyadu ku dheehan tahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xaro ku xeel dheer samaynta website-da casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharo muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hamogaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamogaanin sahal software بسم الله الرحمن الرحيم ومركل iyo shirkadeena sahal software yani waa macalin Faaiz Axmed Ali iyo maadadeena CSS-ka maadadan waxay noo soo mareysay ama aynu ku shaqeynay inagoo isticmaalna website-ka noocana kala dhigana website-kan si aynu ku wadno website caadiyo oo aan ka dhigayno website la tartami kara dhammaan website-yada kale sida website-ka sahal software oo kale sida uu sameeyay oo kale isku dayna inuu sameeyno intii karaankeena doo website-kan waxaan casharkii noo mariyay casharkii dhow waxaan ku soo qaadanay sida farta loo bedelo farta size-keeda sida loo bedelo iyo farta color-keeda sida loo bedelo intaas waxaan ku isticmaalnay one selector ama hal selector ayaan isticmaalnay maanta waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo laba selector wax laga wada bedelayaa hal mar ayaa laba selector wax laga wada bedelayaa tusaale ahaan si syntax-ka si isku qoran halkan kor waxa loo oran jiray selector kana waxa loo oran jiray property halkan waxa loo oran jiray value waayay waxaan rabaa sawirka website-ka wuxuu leeyahay laba ciwaan ciwaankan waa h1 oo waa head ka sare oo h1 baalan ku qoran waxa la Sahal Software College h2 ayaa ii sameeysan oo isna ciwaanka labaada h2 ayaa ii sameeysan isna ciwaanka labaada then waxaan rabaa h2 iyo h1 inaan iska wada dhigo just the same anigoo markaa isticmaalaya oranaya selector-ka h1 iyo waliba selector-ka h2 waxaad ka dhigaysaa background-ka noocaasa fartooda noocaas ka dhigaysaa waan u tilmaamaya sidee laba selector u wada isticmaali kartaa uga dhaxaysiin kartaa property-ga waxa oranaysaa calaamada yar hakad boonaysaa h2 selector-kan koobaad iyo h1 iyo h2 background-kooda ha noqdo huruud fartooda ha noqoto arial font size-keeda ha noqdo 60 color-kooda ha noqdo blue save aan oranaya waan refresh kari waxaan rabtaa inuu color-kii blue noqday page isku sidoo kale noqday waayahay halkan waxaan rabaa inaan ka wada dhigo 30 pixels aan save dhaado waxa uu wax ka bedelmayaan kana waxba ka bedelmaya kana waxba ka bedelmaya hadaan refresh kariyo kana 30 pixels buu noqday kana 30 pixels buu noqday waayahay aan kugu celiyo waxaad uga dhaxaysiinaysaa haddaarti laba selector ay ku sameysnaayeen salaam kale selector-kan h1 iyo selector-kan h2 ayaan rabaa laba inaan ka dhaxaysiyo style-ka ka wada dhaxaysiyo hakad baan qaadanaya kadib waxaan leeyahay h1 iyo h2 waxaad ka wada dhigaysaa background-kooda huruud color-kooda iyo saas uga dhaxaysiinaysaa haddii waxaa laga yaabaa in ay ku qornaayeen h3 oo kale meesha kusoo biirto h3 ayaan sameeyey oo h1 iyo h3 iyo ilaa h6 waxay kala duwanaayeen waxaad ku soo aragtay casharadii ahaa HTML-ka haddaan HTML-ka hore usoo daawan waxaan kula talinaynaa inaad dib ugu noqoto casharadii ahaa HTML-ka ahaa waayahay inta ayay copy gareysayna waan save gareeyay waan refresh gareeyay waxaa arta ciwaan saddexaad oo h3 dhaayano samaysan kan waa h1-kii kana waa h2-kii kana waa h3-kii waxaan leeyahay h1 iyo h2 iyo h3 waxaad ka wada dhigtaa property waxaad background-kooda waxaad ka wada dhigtaa huruud farta waxaad ka dhigtaa arial haddii saas saddex ku wada samaysan yihiin oo ay refresh gareysay waxa ay wax ka bedelmayaan waa dhammaan wixii ku qornaa saddexdaadi koodkaagii h1-kii waxaa ka bedelmaya h2-giina waxaa ka bedelmaya h3-giina waxaa ka bedelmaya waayahay